maayirka degmada Balligubadle Cabdi Iimaan Jaamac oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd ayaa ka dayriyay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada kala duwan ee gobolkaasi Hawd taasi oo sababtay inay soo barakacaan dad badan oo ay ka bixeen xoolihii ay noloshooda ku tiirsanayd isla markaasina ay magaalada Balligubadle soo gaadheen in ka badan 2500 oo qoys oo barakacayaalahi maayirka degmada Balligubadle Cabdi Iimaan Jaamac waxa uu xukuumadda Soomaaliland iyo guud ahaanba bulshada islaamka guud iyo dibadba uu ka codsaday inay gurmad degdeg la soo gaaraan dadkaasi ay abaaruhu halakeeyeen xaaladda gobolku waxa ka jira abaar baan oo xoogan taasoo ay dadkii ay xoolo ka bixeenna ay ku soo barakaceen tuulayaasha ha ugu badnaato degmada Balligubadle gudaheedu ina cunaaye iyo goobo iyo tuulooyin fara badan markaa dhammaan waxaan ugu baaqayaa xukuumadda jumhuriyadda Soomaaliland inay ummadda xoolo ka baxeen ee soo barakacday inay la soo gaaraan degdeg gurmada taasoo ay barakacayaal ka jiraan iminka Balligubadle dhexdiisa ay 2500 oo qoys magaalada gudaheeda oo kaliya oo tuulooyin ku jirin ay joogaan markaa dhammaan waxaan ka codsanayaa hay'adaha caawooyinka bixiya ururada maxalliga ah cid kastoo arrinkaas ka damqanaysa inay dadka gurmada soo gaadho degdeg ah waxaa jiro oo kale abaarta kasako biyalaan baa jira biyalaan ayaa jirta oo nagu soo fool leh baraagi way soo yaraanayaan insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryayna horta ilaahay raxmad roob leh noo keeno laakiinse waxaan ka codsanaa dhammaan ciddii taakuleen karta dadka xoolo ka baxeen inay gurmad degdega ula soo gaaraan geesta kale xogayaha dawladda hoose degmada Balligubadle Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd shaqayn fiican baa inaga dhaxaysa maamulka dawladda hoose iyo community-ga ku dhaqan degmada Balligubadle sidoo kale waxaan dadweynaha xasuusin lahaa iyagoo ku fiican cashuur bixinta in sanadkii hore uu gabagaboobo aynu ku jirnaa 18kii bishiisii February dhowr iyo 10keedii waxaan leeyahay oo aan dadweynaha ku baraarujinayaa in deegaanku sidii horeyba uu isaga soo bixin jiray cashuurihii hadday noqoto dhulka hadday noqoto guryaha hadday noqoto sidoo kale deegaanka liisamada ganacsiga in ay iskaga soo bixiyaan lagu dadaalo sidii awalba ay xafiiska u keeni jireen ee sharaftii karaamada lahayd ee ilaalinta degmadooda ahayd inay imankana isaga soo bixiso maxamed Jiciiro Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaale warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle